وإن روح ظالم كالله يوم ظالم باتا كفريسو وحبا لو دربانتوبين عدة عدين تربتارو أنا هاي 42 pages so I will send it right now روح الربو وليجي ما كلا دماني إنه إن مرة بعد مرة صدحات وحيني شيء لكن حمدا حل جوجيو أو waxaan waxba keen waxa soo haray arinta qabiilka oo Google baa noo taalay there is no Google kiiskan 3 sano socday wax Google kama dhicin aabahay uu ku waashay hooyadii baa ku waalatay oo ilaa hadda she is not okay and all my family is fucked up and waxa weeyaan don mataqaan waxba aan ka jirin nolosha ayaa la sameyn am victim ana victim ka maxamuud xirsi oo شخصية أقول القات كبدل لبضكن إلى بعتنك ما دام وح كبحسن حد كذب لوج يستخف بالآذن لو سميه سلام مركا أنا وآد أقول القاتي محمود أي وح وجواب كبحنيا هذا الذي جفك سجى كدن كها يسوع كلا عدة سوء أباب شيء سجى سوء كلا شيء إن أيسن ونكسرين وح أي كل رقمين لدتك كله أرمها سكشقيي سجى وح كمجران كتل ما وح والبقى شيء isagoo sidoo kale sheegay in maxkamadda markii uu tagay waxyaabo badan oo ceeb ah uu qariyay sidaas ay tahayna wili ay iyadu markaa arintu tahay faano le fari kama qodna haddaba daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan dulmiga cad ee aan gambadka lahayn ee lagu sameeyay walaalkeen maxamuud kadib markii la sheegay gabadha uu qabay ilmaheeda inuu abuse gariyay isla markaana uu qaarkood tacaddi ku sameeyay hadalkaas oo ahaa mid been ah waxba kama jiraan ayaan rabnaa daawadayaal inaan idin soo gudbino maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya isla markaana cadeynaya isagoo sidoo kale dadka Soomaaliyeed uga digaya in ay ku kadsoomaan beenta baraha bulshada la wareejinayo maxamuud arrimahaas ka hadlaya ayaan soo gudbin doonaa hase yeeshee inta aan gudagelin daawadayaal barnaamijka waxaan idin ka codsanaynaa marka koowaad inaad YouTube-keena subscribe noo saarto waa bandhiga production sidoo kale aad furto gambaleelka maxamuud oo dabcan qisadan ay qabsatay isla markaana toddobaadii la soo dhaafay isagoo markaa dacwad ku wajahayay wadanka Mareykanka dacwadaas oo ahayd mid markaa aad loogu dulmiyay ayaa waxa uu ka hadlayaa sidii ay wax u dhaceen iyo sidoo kale halka xaaladdu markaa iyadu ku dambeysay iyo dulmiga lagu sameeyay inta uu la ekaa haddaba daawadayaal sidee aad u aragtaa arrintan haddii aad hore u socotay dulmiga wiilkan Soomaaliyeed lagu sameeyay qaybta commentiga ayaad ra'yigaaga noogu cabiri kartaa adiga oo maxamuud sidoo kale la talinaya go'aanka ay macquulka tahay inuu qaato ama ay iyadu ku wanaagsan tahay qaadashadiisa waligay ma kala dhamaanayno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan sheegayaa dhaqan xumada hala joojiyo oo waxaan waxba keen waxa soo haray arinta qabiilka oo Google baa noo taalay there is no Google kiiskan 3 sano socday wax Google kama dhicin aabahay uu ku waashay hooyadii baa ku waalatay oo ilaa hadda she is not okay and all my family is fucked up and waxa weeyaan don mataqaan waxba aan ka jirin nolosha ayaa la sameyn am victim ana victim ka labaatan laba wadan aan ku soo noolaa I have never been accused waligay dambi ma gelin ever waligay lima soo xirin Somali community u shaqeynay inta aan joogo hadda 33 cunug baan wax u dhigay oo Somali Ethiopian wax walba leh imaam masaajid baan ahaa taraawixda ana tujinay masaajidka aan joogo salaadii ciida ana tujiyay is that wax nolol ruux lagu sameeyo don't support crime this is fucking crime I'm not a rapist you know ruux bila aadan aad ku eedaysay oo waxba gelin inuu rapist yahay wax ugu sameyn ilmahaada kugu marxaat furay ehelkaada kugu marxaat furay waa in ruux daalimka loo yoom daalim baata ka fariiso waxba loo durbaantubin cid cadayn tarabtaa rabo ana haya 42 pages so I will send it right now ruuxi rabo do you think damage ummadda dhan soo gaaray ma aragtaan laba ruux oo sharleeya oo shayaatiina waxa ka 15 milyan ka Soomaalida ay ya ka shar badan oo waxaan diidanahay in ilmahayga not ina noloshay ka hadlay ilmahayga ciyaalkayga gabdhahayga ama wiilashayda inay farxad ku noqdaan adduunka raba cid walba Soomaali ah oo dulmana inay dulan kaga baxdaan raba inaan cid ku fadaxaysanay ma aha aniga ceebaysan anaan isa sii ceebay wixii dhacayna waan sheegay dadka hadda qabiil there is no qabiil aniga gabadha meel ma kala jirno qoyskeeda aabeed Allah u naxariis waa loo tagay wiilka magtiisan bixinay u dha Allah u naxariis inta xirnaa u dhintay haddii arinta caday noqoto reerkooda waan wada wacay waxaan ku dhahay wax dhacay baa mas waxa sameeyeen way okay ilaahay baa idinku daayaan dhahay
عدالة إلهي وصبحي إما يقروا حيقول حرد almost 9 مليون ينقودين هاي أو رجال لها أقول له كو إلهي القرآن كوير إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والقارمين وفي سبيل كو إلهي ينقودين هاي يوسف السجن عذاب من عذاب الله روح بالآذنة سجن جلسة وليبا أتكو آذنة سا ريبس أو قبر إيقا كفصدي هو كفصدي حتى she's not saying عورد يسوس صار what does mean you know جال مرسا عقابة الروح أولي جالكو كومراي مقرنيسا security almost waxay ka badnaa intaas oo ruux qol yaro 2 mitan less than ku xirraa freezing on ku soomay do you think that crime in adduunka karan I wish in Minnesota u gubanin waxaan igu dhacay nagas doo masaajid ba ku xirnaa iridii ugu xiran never they will never waliga ima imaanin they don't know hatta ima ogeyn nin soo islaamay oo muslim ahaa bay soo booqday kitaab keenay walaalkiina u macilna sa kitaab uu keenay war community ma jiro there is no community Soomaali waxba gabdhaha aan la eedenin mid kale gabdhaha waxaan sheegayaa kiisaska qortaan first watch out waxa qoranaysaan don't listen fucking bitch or fucking loose or nolosheeda gubtay or from Sinkalor 50 mile ka soo drive garanayaan they come all the way in a red dumiyaan and you accept that bullshit nevertheless ma dhacaysan intaan loona waxa soo haray kuwa ragga abuse gareeyo from Africa keeno this bitch abuse ka dadka umada lagu wado oo ah ragga qaad ahaan gabdhahaas waxaan leeyahay noloshiina sharciyaashiina ku careen wadankan waxa ka jiro nolol iyo waxa ka jirto farxad iyo sharci kala dambeyn daruuxa Afrika ka keentay indhaha la green card marka faraha saarto 5 years abuse garanaysa ilaa passport ku qaa stop it ta kale aniga naag ima keenin gabadha ima keenin 22 countries aan soo maray all the way Mareykan ay imaaday sanadii barban ku xirnaa sharciga waxa ay siitay immigration ka ay siiyay waxa weeyaan waxaan aad u mahadcelinayaa gabadha oo Farxiyo Jaamac oo sharcigeeda ii soo dirtay oo ay caawisay ano ehel ku lahayn oo hal ruux aan ku lahayn aan lugeynay California 3 days markaan soo baxaata waxay qaabilaan way I thank gabadhaas aad u mahadcelinayaa iyo kaniisadii caawis dan kale waa inaad ogaataan one thing is waa inaad ogaataan this ruuxa daalimka ah asaga dambigiisa leh do you think inaad toddoba gobol waxay case ka qaateen not found guilty no the case dismissed wax macna ay ma keenaniga laakiin sharafta ummadda Soomaaliyeed meel looga dhacay that is bullshit waana ku xumaay in qoyskayga uu tusaale ku qaato عشر عن النقطة ضدك كله all of you دين تواتقانن ورنبياش هالحير جري أو ظلم الوجل جري دم بيقول دعاء إلهي القرآن يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي لغفور رحيم you think دم هذا بلاد أم مظلوم لماذا يوم القيامة والله أنا معكم أنا إن عمر خاتفورة إلهي الديرات عدي أم سرمدي نقا أم وحان نقطة fucking loser نقا يوم القيامة أنا يوم مرخات فرايو إلما هي قاسيرك وإلهي وكير القرآن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم عيالك قبله ذا جوستين أم هو ذا قبطان إلمي نوكلا وين شيء فيسبوك يكون جتا قبر نبتي ذا كفر ذا my wife إسلامتي فيسبوك يكون جتا فد وحيكون فد ذا نبتي ذا what قبر نبلا ساري what عوري محاتو ساي you think هذا أنت تهوبرتي أتجيسي أكس بدأ أوجيسي هذا الله شرحي wax sharci mooysa waxaas waxaan aad ugu macilnaa maamada ciyaalka aydooda boqolkiiba boqol SF ilaahay jannadii firdaws Allah ku geeyay waxaan kale u macilnaa wiilka gabadha ay dhashay oo asna noloshay badbaadiyay Ilyas ilaahay adigana khayr ku siiyay war waxani waa waxa weeyaanay adduunka aan wali oga dhicin maxaa keenay walaalkeed in maxkamad looga yeer maxaa soo gelin kiiska maxaa soo geliye kula tahay waa mudlimada daalimnimada ee aan igu sameeyeen qabiil haduu jiray qabiil kalaan dheersan ma jiro all of them Minnesota 75% ogaadeen way no one interfere ya soo galay cid ka hayso ma jirto maxaa beenta la isku sheegay sab kalaan qabiilka yaa soo haray 11 month kuma xirnaan lahayn aniga if this cadaalad boonkay 200 buha wala bixin kari 5000 waxaan aad u madcilna walaalkay Baaruud Cabdullaahi Qaar oo maanta xorimadan ama lawyer ha noqoto ama nolosheeda ha noqoto ama boon ha noqoto ka dambeey hal shakhsi iyo adeerkay kabla lax ee dadii fartuun iyo dhamaan intii wanaag ka qayb qaadatay
waxaa weeyaan waxa beenaya lagu sheegay days hadday community Soomaaliya dhab jirto ama dad islaan caadi meesha u degan yihiin dadka kiristaanka ee ku nool wadankan yaa waxaan dhihi karaa 75% kiiskay waa garibsay hadday kaniisad noqoto hadday noqoto kuwa xaquuqda u doodo hadday noqoto psychologist don't interrupt my maxaa leeyahay fi life-ka masaajid hadduu jiro ama ummad hadday jirto waa lay imaan lahaa ama kiiska waa la ogaan lahaa nabaraska waa maasantiin 100% way ka soo habaceliyeen ilaahay ha laga baqo waa in dad beejkanayta beejkay wuxuu noqon doonaa eegi wixii laga bilaabo ku ummadda ama qoysaska lagu waaniyo midda kale wax kala la isku eedeeyaa wiilal waxaan arkay u xiran oo ilaahay igu ogyahay just jikaaku gaaray taraga stobisa uu soo noqay saantu la seexday 991 loo wacay hay midda kale waxa soo baxay sheeko cusub musqulaha telefoonka ama musuqu ku ridaysaan Georgia waa another case 991 hadaa wacdaan wait booliska ni imaadaan musuqsha ku ridina ilaahay ka baqa war mudno wadankiina soo gubteen wadankan Mareykanka yaa la gubin wallahi mucjisa ka dhici doonta Minnesota iyo Ohio Sweden Canada abuse iska day especially women Georgia war meeshan sharci baa ka jiro war sharciga aan tarbigaran videoga waxaan ii sheegay please noloshiina ku farxsanaada waxa soo haray gabdhaha ilmaha dhalo ilmaha Mareykanka waa ku ilaahay ku anfaco loo tala galo oo ilaahay dadku abuuro iyo mid ah iga dhal aan kugu dhibay iyo mid tax return war ilmiina dawladda laga ilaaliyo xoolaha dawladda cunaysan Georgia waxa keenay fidnadan oo dhan waxa weeyaan waa xoolaha dawladda la cunayo beenta loo cunayo iyo tax return-ka beenta lagu xareynayo war alla ka baqa israaqad xalaal wadanka hala shaqeyso I never will you feel sama qadan ilmahay maalinku dhashay kaanigan soo wacay gabadhan soo wacay $1 haga siinaan ku dhaw wayna siisay ana dib liigu qabsaday lacagta uu soo dirayna ayada dib loogu qabsaday $1 la ka dhigay is felony she is going to jail for that everybody knows as well war ilaahay inta ka baqdaan xoolihiina Mareykan lacag baa taalo 2000 hadaad soo gareysay family-kaada ku filan tahay fulisaan baad u baahneen oo beena tax return oo beena ilmo buga ilaahay ka cabsada set up ka soo haray ilmaha 2 weeks lagu dhalo hala joojiyo ilmaha 2 weeks ka intii fadhi 500 soo qaatay sariir oo twins la soo qaato nin maskiina meelaha laga soo xareysto after walacana la dhoo oo get out lu dhoo joojiya ragga Soomaaliyeed ha ka fiirsadaan also ka fiirsada dumarka waliba Minnesota woman aad ha looga fiirsado very dangerous way iska ilaaliya waxaan ka hadlayo waa waxaan i taabtay toonka bilood cashirkan soo akhrisay every Somali guy la soo xiro waxa lu wiil wax daroogo lagu soo xiro ruux masagaar is dagaalan iyo wiil gaari soo dhacay the rest meeshan joog maximum baa Soomaali ma keenin jirin the rest waa dabadu iga taabtay iyo ana tuwa waxa soo xirtay waalay warsana yoomul qiyaama 22 daqiiqo wax u dhaxeeyo xabadkeeda gacanta saa u saar what does mean masaxba waxaas booliska they know maxaa ku khasbay war ilaahay intaad ka baqdaan cawradiina iyo galmada aad ku dacweynaysaan Georgia naakasta Facebook-a soo gasho galmay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa waxa loo war galmada ceeb ma banaanada la isku booda do you think galmada ceeb tahay ilaahay intaad ka baqdaan ilaahay ha loo soo noqdo war ilaahay ha loo soo noqdo in Allah la yuqayyiru ma biqawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim billahi ilayhi waxa dulumka Soomaalida maanta Muqdisho ay u gubanayso I don't know waxa Muqdisho kaliya dib uu ku dhacayo wad Soomaali meel walba joogto fidnada waa waxa laga galay dalka dibadiisa not only dadka xagga galaan war dadka madluuminta madluumka midda kale labada nin ee militariga tuutaha qabo ee Muqdisho maxkamadda dhex fadhiidhayo Faadimo Maxamed Cabdullaahi ruux magaciisa inta loo yeero lahayo found guilty madaxa laga tooganay ayadana mucjisay kamid tahay wax investigation ma maraan wax ma maraan maxaa la dhahay cadaalad ma soo maraan waxba dhacayo shan wiil la soo qabana madaxa laga tooganay war cadaaladda adduunkiiskayga kow cadaaladda ha looga daydo oo ilaahayga abuurtay ka baqa oo qabiilka iska daaya qabiil waxa ma sheegay wallahi inuusan qabiil ku caawinayn ana qabiil cid igalaan dheereysan ma jirto I don't think cid Soomaali igalaan dheereysan jirto there is no qabiil ku caawinay ma jirto nin iga aaba fiican ma jiro
إلهي أنت تكعب ستان إلهي أنت تكعب ستان الله الله صنع نقضه مدة كلو رحمة الشيكة صهري فيديو هذا 75 وحمرة يا 5 مليون wax anfacda in yar budget gabdha yar oo soo wacay 1000 keer oo community-ga Minnesota kamid oo ayaan rabaan inaan muxaadaro u jeediyo ama aan uma taqaanay dhaqan cilmi u sameeyo wixii la khalday iyo dadka wax la khaldi doono iyo gabdhaha ma taqaanay tushuushka qabo waxaan waxay u baahan tahay depression wadankan cudur xun baa ka jiro gabdhahan dambiyaasha galayo ama ha noqdaan kuwa ay u qaawan soo galay iyo kuwa rag oo been ka sheegay first wax u daran waa depressionka dadka qaar horta waxay nuusiin waa in ma taqaanaa saa loo ogaado sokolni islaamaha groupka ee single maarnimo iskugu heelinayo ama dawlad wax kaga raadsanayo ama ma taqaanaayay isoo sheeg maxaa la dhahayay kiisas ka qayb qaato ilaahay wuxuu idinku tagalay cadaab aad u xun alladina yabkhuluna an-nas wa ya'muruna bil bukhli wa yaktumuna ma ataahum Allah min fadli wa a'tadna lahu lil kafirin 'adaban muhima كافرين تامل لجليسان دوردين تا مسلم هو نصيحه أنا شكي إجلي أم حافظ القرآن بانه قاري بانه دتكو إلهي دور تبان كميدا هاي وحاشكي إجلي إيمان كي ننسو والله إلهي با ما هذا كلام إلهي كعب صدا دين تا يلا جب بيشيجن كوميونتي الصومالي عد ماشان كجبل مجرته كوميونتي بوليس كلا شغالين بوليس waxay ugu yiri nabarsi ugu maaday wareysanay oo dambaaris wax dambi baaray wuxuu yiri Soomaaliya problem ka jiro kiis haduu dhaco oon cadeyn heli leen nin walba ka cararaya wariya laga caran information ka la sii intaas ruuxada meesha ya lagu dilay Minnesota wax information bixiya la sii information khaldan haduu jiro this information waa khalad waxba kama jiro she set up waa waxay diyaarisay waxa igu xuma waxa way ilmahayga aniga aan dhalay oo gacmaha ka xiran lahay DNA laga qaadaya oon ku dhahay no hal saac baa la jijiday no DNA liiga ma qaadan ku dhahay khasab baa laga qaaday marka dambe hal shuruudan ku xiray ha u sheeynaan ku dhahay saanta ilmaha dhashay never my baby inuu aan dhahay jiro ii dhaaran ku dhahay she accept aaba fiican baa tay ugu tiri there is no shaki cunugayga aniga galay maxaa keen ceebtaas surmudiinta keeneen ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada waxa soo haray case-kayga wallahi oo billahi thumma wallahi ilaahay nabi maxamed sameeyaan ku dhaartay inaanan wax yar oo dulan aan sheegin wax yar oo dulan aan gelin that is the truth wax dhacay waxaan qarinayaa ka daran waxaan u mahadcelinayaa maamooyinka arkay ciyaalka markii la toobaray ka bacdina kitaabka quraanka diiday markii la soo wacay maamada kale waxaan aad u magaceeda ma aqaano information ka codka keentay aad baan u mahadcelinayaa war waxaan cashir ha laga barto cashir ka barta ilaahay inta ka baqdan joojiya fidnada dhexdiina oo ku qaata waxaan waxba yaa la daleeceyn waxba yaa dhiim yaad isceebaysay there is no app gaari ma wadi karo protection order shokobi 169 markaa marayo waa inaan kor uga baxo ما مري كري دليفري أدان وضع عن أمازون وضع ما جين كري 50 سنت كلون تيكرا الحمد لله رب العالمين الله يركي ما هذا علنا شلي صوعي إن نشكو بيجلي كرو أما أن هركا قاضية أما أن كنا ولاده أما أن شقوا طوا وعليه فصح صدق سنة يجي حرد الحمد لله حرمة كمتها تكلوا حكوا صهري والروح عن وحبكوا سمين أو وحبكوا سمين وأشهادنا يو أو ما تقانا سلادس تكنا يو أبي محاد كيس أو وحبك الجن أو خريسان ما أنا كلي كمان الله كو حرام لغد المي جالك لغد درايا كدران there is no case dismiss مرايكن مجرو هديو كيس كساس خلار هو dismiss وحصار وحلا ده روح مسامينر باجين ديل بجرو أو دمي قواد قشطمها لبي تونسنوها بارول بنكوس دينا 5 سنة ويرك لقطة لقى حرايا ورقة ريجستر لقطة لوسو قلنا Soomaalida maanta Minneapolis 75% waa register oo xaafadda markaa soo degto waa inaad daris u sheegto aniga hadda ka hor naag baan kufsaday maada kufsan you don't do anything midda kale kufsima waxay ku dacwoonayaan dabada liga taabtay ama wax baa la saaray ama korka liga fuulay ama galmaa lagu khasbay waxaan hayaa 10 nin ka badan oo register warqad jeebka ugu jirto hadli karin
masaajid xataa aan ka kaxireen wali duceeyay ilaahay ka cabsan war ceeb ha ka cabsanina dembiyada miina gelin ilaahay baa caadil ah sheega this was happen waxaan waxay ugu dhacay register way 5 years ka bacdu ka baxaya waa inuu cid walba dhahoy guriga laga kireeyo sidan baanahay ilmihiina ilaashada you think kiiska haddii lagu xukuminaa meequu noqon lahaa 30 sano walaalkeedna wuxuu aadi lahaa 14 years war iska daaya dulanka dhexdiina aad joojiye waan ku celinahay number 2 midda kale waxa marka aragtaan waanaha ka qaato waxaan arkay gabar raxmar raaxama lahaa ama kordaab oo loo jawaabay waxba aan loo joogin gabdhahaas ilmadeer baa nahay waan isnaqaanaa haddii kiis ka qayb qaateen iyo haddii aniga gabadhay xaaskeeda ahayd mataqaanaa ay garab istaagayaan aniga xaaskayga meel uma kala socon waxaan rajaynayaa inaan isku noqon doono ilaahay duulaad say saasaanta u socoto ilaahay intaad ka cabsataan oo toobad keentaan oo quraanka waa taqaanaan nin walba yaasiin iyo tabaarak maalin walba akhristo soomaali ilaahay ha loo mataqaanaa ha loo bariyo ilaahay u noqda caayda aflagaadada snapchat hadday noqoto facebook waxa laga qaato waa sharka bas khayrka lama qaato warwaanaha qaata raggaa soo haray ragow raggii baa soo haray ragga waxaan leeyahay joojiya gabdhaha abuse gooni idinkana wadaan number 2 sanadka fidnada wuxuu dhacaa Soomaalida the end of the year tax return February hadda way bilaabatay already tax return la soo qabsanaya fidnada dhankeeda aniga saantay tax return islamaan gaari lawo ma san nooleene taasna waa cidda saameynayso ogsoontiin ragga Mareykanka la keenan ka hadlay ragga Mareykanka la keenay xuquuqba wadan ku leedihiin social hadda qaata green card hadda qaata xuquuq gooni aad leedahay baasaboorkiina waa leedihiin ilaa 5 years inta ka gaaraysan baasaboorkiina waa helaysaan gaariga ka soo deg guriga joog lugta ka xirno way house loo diro jaagi maxaa soo dhacay way dhamaatay lawyer waxa soo baxay la dhahayo Jay Mantiquio iyo Lauren arintaas caadi baan ogala qayb qaatay waxaana jecelahay in mataqaana cid walbo abuse ku jiro lambarkay waa 9522173507 wiilashaas oo ugu dara number 1 number 2 muhiimadu waxa weey ilmaha dhaqanka guriga lagu barayo ilmahan wadankan ku dhashay waa ilmo Mareykan xuquuq gooni leeyihiin kiisaska markay dhacaan wax qabiil dhahay ma jirto kiiska hadda saantayda kiiska maalinka ay qortay gabadha ay geysay yay fara gacanteeda ka baxday wixii kale oo dhan ay qoraysay waxba kama jiro hatta ciyaalku waxay geysay meel gas station oo ay leedahay meeshan waxa ugu jilmihi way gali laayeen ayna waa qof aad iyo aad u fiican waa cabsi nafsadeeda u qabto wallahi thumma wallahi يوم القيامة ورسنا قف بالآدم وكفي عن قبض عاسي سومالي كما دالنيس نفسد ده وبقضي مالك جيسي عنق التوبركة تضوبلك بعد توبر عنق الله فري مخاطب يكون غنطونه عبسي وقبتي جاز سيشن بوحيتري جاز سيشن كان بو يحوق جلمي ويقل لاين that guy was discussing ننحم بوها هذا الله ده ما هذا نسكت دعوة ما لكن وحكا كاني حنون كمرايكن كان هالفرح داتك تطهم فربلو قلنا single mother watch out waxa sameynaysan sokolni waxaan kala rabaa inaan ka hadlo oo muhiimada tahay ilmaha sida dugsi loogu diro guriga markay ku soo ilmihiina akhlaaqda bara oo ilaahay ka baqa oo wadankan dulmi baad ku geysateen waxay la xirnay 72 nin daltan ku xirnaa meel dhao waa meesha oo suhamaaqsimama heer wax markii dam waxaan gaaraan warqadaha u qaybiyo kaniisada markii aadaan nin walba soo ooynayo soo noqonay waxay u caabudayaan waa diintooda fiir waa kristaan wallahi ilaa hadda James yar la dhahayo iyo David labadaan ma helmaamo wuu baxay 3 bilood bil ii wada u iimaanay maxkamadeena iimaanay war tacsi qaata dadka ku tacsi qaata ay weybis dilaanba webiga masabisi isku tuuraan marka khaladkan laga galo ilaahi intaad ka cabsataan oo nabigiina u soo noqotaan minasoodoy waad ogtiin waxa dhacay waad ogtiin jeelasha booqdo war jeelasha hala booqdo jeelasha waxa ku jira dad dulman ba ku jiro wiilasha nolosha ka dhacay mooy niman badan waxa jira kulli track laga soo dajiyay oo track stop kulli track stop ba fig laga soo xiray anu guriga horta anu gaari ka daga fig li soo xiray sokoli kiiskan hadda kaliya ma dhicin kiiskan si ugu dhacay uu ku dhacay laakiin mar walba inaan adeerka iga horeey la walaana kala dhalay yaa ka horeey sidan oo kale
bay waddanka uga baxday waxba ha cararina maxkamadda ha la imaado dadku caddaanka kiiskama noocan kala gaaro waxay dhahaan anaa khaldanaa girid buu ku helaa 75% naagaha wax dacweeyo ayagoo maqan baa la xukumaa mid u yarba waxaa inii sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaad I don't have time sabtid iyo xaddan soo geli doonaa sidoo kale waa haddaa waana qaadanaysaan waa haddaa wax garanaysaan ilaahay intaad ka baqdaan diinta yaa laga beesheegin oo dhaqanka yaa laga beesheegin dhaqanka Soomaaliya laga beesheegin midda kale waxaa soo haray Minnesota waxaa weeye waa meeshii qurbaha Soomaalida adduunka joogto xudunta u ahayd arrimahan oo kale waa in mataqaanaa laga tashto hadda waxaan arkayay dad meel furtay waxba kama jiraan oo wacyigelin waxba kama jiro runta iskuma sheegaan runt ilaa la helo gabar daalimad ahayd oo ilaahay u soo noqotay iyo surmudi tababaraysay oo fidnada ka qayb qaadanaysay oo imaato tira ilaahay baan u toobad keenay lama helayo ruux Soomaali dambi intuu gal waan toobad keen ama qiranay horta ma jiro never don't wait lama helin ruux Soomaali dambiga waan galay dhahays do you think in la helayo ruux Soomaali dhahay dambiga waan galay ilaahay baan u toobad keenay inuu asaga sirtiisa waa laga yaabaa laakiin intuu soo gala dhahayo waan toobad keenay halay cafiyo never will never happen tasaddexaad oon rabo ayadan inaan ka hadlo hadda kama gaarayo waxaad ogaataan cid walboo la xiro oo Soomaali ah 9 qoys ba markuu yaro u biilayaan waxaan u sheegayaa haddaad ruux xirtaan dabkaas ilmaha waa la damin aniga oo ilaahay ummadda iga mataqaanaa iga biilayay yaa waxaan noqday in aniga wax la ii keeno aad baan u mahadcelinayay dadii fartuun walaalkay Cabdicasiis Xasan Xirsi walaalkay Baaruud dhammaan iyo waxaan aad ugu mahadcelinayaa Faadumo Saciid iyo wadaadkeeda oo iga imaaday meel aad u fog 16 saac soo wadeen gabadhaasi korkayga ku umushay Zimbabwe iyo South Africa dhaxdooda 3 days lagu weynaynay wiilkeeda Maxamuud baa la korkayga ku umushay gabadhaas wallahi magaca Soomaali waa isku imaanaa gabadhaas aad baan u mahadcelinayaa gabadhaas iyo intii mataqaanaa wanaaga jecel oo Soomaali ah ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay dali dibadba sida aan iska warayna hadda 50 milyan ba Soomaali lagu qiyaasaa almost 7 milyan video way daawatay war ku tacsiye qaato dal iyo dibadba ilaahay idin abuurtay ka cabsada oo dulanka iska daaya midda kale hadduu wax dhaco quraanka sheegayo الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا منهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله به إن لقى هاجرة يسوع بليس هاني حسن don't call me and ولقى هاجرة إن لسكا هاجرو دين تشيغس هاي هدي لا دعو أو لسكو دعانا قرابتها لو نقول أمريكا لو نقول الله زينب هذا قولي زمزم محمد ما صنت ولا وان اوغاي ابيوس حن با كجرتا عبد الله سعيد I know you waxaan ka hadlay waa xuquuqdaada laakiin waxa meesha ku qorin don't worry about it we figure out and waxaan ii sheegayaa Abdullah awalal may wallahi wax jira waay dad waan ogsoonahay just stop meesha ku jooji page baa loo furi doonaa oo looga hadli doono Minnesota waxba ay soo dirin waan ogahay ninka hadda hadlay magaciisa inaan sheegay mar rabo dadka xuquuqda aan ka hadlayo ku jira abuse xun buu ku jira waxa laga keenay Nairobi waxa weeye laga hadlayo horta anfacsada oo sida aad fidnada iskugu qaybinaysaan wanaagga ha loo qaybiyo sheekhayaal baa joogo sheekh umul sheekh maxamed idriis mar walba waxa laga hadlaa arrinta qoyska waxa aan ku noolahay maanta ku dhisanahay Soomaali haddaan nahay waa arrin qoys waxa aan ku dhisanahay on dadka ummadda Soomaaliyan kaga duwanahay oo ummadda kale adduunka kaga duwanahay waa caawinta aan caawinayno ta kale waxaa soo haray
waddankan waxaa nala joogo suudaan nyere nima la dhaha nala joogo iyo dingo urungi suwaano bujooli oo liberia laga keenay intaasoo qabiil baa nala degan maxkamad ma dhicin weligeed soomaali ma ogiye naag qabiiladaas ama waddamada ka imo maxkamad imaatay waxaa ka dhacay danfer weli ina adeerka waxaa ku dhacay oo danfer ka dhacday colorado ka dhacday in xaaskiisa sidoo kale ku samaysay intay dhacaanka iska qaaday saartay ilmihiisii kabacdina maxkamadda imaatay asagaa cafisa soo 500 kun baana madaxa laga saaray ayada wuuna cafiyey war midda kale ilaahay intaad ka baqdaan dambiga markuu dhaco waxaa laga fahmo wax laga barto oo aad waxaa arkaysaa ruux daalimad ah baa waxaa la aadi waa la waraysan dubantuun maa waxani waa cimri qaadasho waxa aniga ugu dhacay waa cimri qaadasho I don't want to talk it haye hal gabadhaasi ilmaadeer baana 3 sano kiiska socday stop raxma raaxo don awayf garanin en fidna cinda geel ani naag lama xintimay naagna uma jawaabay intaan socday كانت مو عرتي ما بحث انا هذا ريران ايغما iyo farxad igama wallahi billahi alim case kaas haday noqon lahayd xukuumad waanu sheegay aniga la xukmi lahaa ana cusal la meesha laga xukmi lahaa ilaahina naguma keeno midda kale hal ogaado bikad rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin bu ilaahi yiri wa ruuxu walba wixii loo qoraa ilaahi u dhacayo wa indahu mafatihul qayb la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fi al-barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وروح والبا حتى علين صود علي كصود على الدنيا إلهي نويس رزقنا كتاب قوم بلو قري بناء سهل welcome and وحاوي أيضا دين تسهل لو أوجهي أو وحي قرن بعد دونه waxba dulun farta la gelin anigu ismani waxaan wixii u dhacay shalayta kama qabi wallahi alazim shalayta kama qabi waxaan ogahay qisadii nabiga waxay ku dhamaatay waa la loo socdaa ilaahay intii laga cabsado waxaan marka ay dhacayaan dad baa marxaati ka ana tafiri guri lagu toobaray ciyalka nagas do all ay baby ga soo haray What happened to your other twin? The twin baby sorry. Unuga ilmahayga. My baby wa ilmahaygi wa digaygi. Gabadhan uurka 1 week bay ku qaaday. And 1 week markay ku qaaday. And 3 week bacdi ama 4 week bacdi oo xal helay ciyaalka inay baby twin yihiin. Gabadhi ani waan maqnaa markaasi. And waxaan ku maqnaa Nebraska inta Nebraska aadin ani ayada istabaan tagnay isbitaalkii markaan wada tagnay dhakhtar baa joog kaamira joog wax walba la qoraya ilmi dudeedkana loo sheegay ka bacdi markaan soo baxay dhiig baa iga imaaday asaga ay daba tuuray ilmi saas iga soo noqday su'aasha waxa weey ilma twinsa ya caloosha ku kala reebi karo ya ka soo kala ridi karo Allah إلهي وحن كهن ومسؤول ذكر community dadka qabiilha markay u tageen xamuud daan dacweyn la cunugaas u dilaan ku dacweyn la raxma raaxo aba you don't know what you talking about ruux la dilo waxa adduunka oo wuxuuna ruux lagu taasa u fiicnaan lahayd ilmihii suu dila day dhileed waa wax aqal galay noqon lahayd cid maanta qaadanaysa ma jirto ruux baa cunug mataana ah midna dilay midna reebay ilaahay horta laga baqo oo ilaahay ha laga baqo taasan in sheegaya inta muhiimadeedu waa taas kaligeyna ma way daba tuuray cunuga iga soo dhacay sheeko koobi ah anigana in la hadlaayo yaa boon ku soo daayay islaantiisa ay leedahay cunug iga daba tuuray cunugu iga soo dhacay dhiig baa iga imaaday uur xataa meeleen wax kale iska daa caadadeedii bay tustay askarta naagay u warantay yaa maxkamadda imaaday
codkiina la keenay cabdullaahi sheekh daahir anaa wallaahi soo boonay waxaa samaysaan ilaahay intaa ka baqdaan war ilaahay ha loo soo noqdo intaa baa inii sheegaya ama muqdisho joog ama jabuuti joog ama gaariso joog dal iyo dibad sheekadan ka socoto Sweden Minnesota labada gobole ugu daran wey hala joojiyo abuuska waxaa soo haray gabdhaha shakiga naftooda iska qabo ee laba cunug markay dhalaan ayagoo 25 years jiro ninka banaanka u tuuro nin dambe kuma guursan doono noloshiisa ku ciyaar dhahayo there is no life wax lagu ciyaari karo in America no abuse at all sharciga ku qoran tahay waligay video live ma soo gelin video waligay ma soo doobin ruuxna waligay igama dacwoonin waxaan idinku kala qaaday I'm not crazy ma xanuunsani waxaan rabaa dignityga Soomaalida inay kor u kacdo عشرين laga barta calan waxan oo kale ragga waxa jira ragga abuse ku jiro waxa cabsanina aniga maamul abay maxaa faadimo stop de naga daawala kuma galayne may wallahi kuma galay not galitaan aan ka hadlay macni way tarb garaysay point aan ka hadlay waxa waaye gabdhaha shaki iska qabo waxaan horta waxa keenay shaki dumarku waxay u qaateen ninkay jeclaan si fiican buu u raaxayn jiray si fiican buu u qabay not like that waxaan masayr korto wax jiro adduunku waxna keenay masayr way laakiin waxa jiro ruuxa kalsooni iska qaado gabadhu markay laba dhasho ama afar dhasho nin dambe uga dhamaatay saasi aaminsantay inay Afrika aado tagsirtaan u soo dhaco ama ilaahay meelaha wax ka siimo ogi nin Soomaali horta kuma soo leexanay dibku u weynay gabdhaha ee dambigu u galan horta waa taas mana qarinayo waxaa loo galayaa afar cunug guriga kiriis lama bixin karo guri la dejin karaaba jirin boo yar tahay 3 qol in loo raadiyo waa kiridiisina waa 3 qol nin ku soo galayna ma jiro oo kugu soo leexanay nin ade faaxish iyo zina u socdo mooyay waa aad bay u yartahay ta saddexaad waxaan loo sameeyaa ruuxa sharcigiisa noloshiisa war sharcigan kulligeen faktin baan Soomaali oo dhan ama hawiye daarood noqo ama Soomaali daarood noqo all qabiil noqo fiktan baan kulli waa wax aydiid ka sheegtay iyo wax Abdullaahi Yusuf ka sheegtay iyo wax dhahay ma taqaanay aniga saanaha oo saasa la ii galay horta ninkaasna loo madceliyo jarnaal aydiid ha loo madceliyo ani ma u madcelinaya boqolkiiba boqol aad iyo aad ha loo madceliyo 5 million people ku joogto wadankan ama hawiye noqo ama daarad noqo jarnaal aydiid baa lagu joogaa alxamdulillah dha secondly victim waan wada nahay been baa laga sheegay nin victim ka been ka sheegay nin run ka sheegay aniga saddex waddan ma victim ka ahay South Africa Kenya iyo Soomaaliya Mareykanna victim ma ka sii noqonaya alxamdulillah victim ma noqonin wax sharciga ah ma jiro wax xumaano ay gashay ma jirto laakiin qisadeedu waxaan u laqay in ma taqaanay ilaahay uu ka waday in tusaale lagu qaato kuwii anfaco ilaahay inaga dhigo gabdhaha waanada u dambaysan siinay waxa weey markii wax dhaco aad kiis qorataan kiiska la qoro maxkamadda imaada maxkamadda hal imaada maxkamadda goysaan waa another case